فيك المعارف والمواهب حلوة، فيك ارتقاء الفكر للإنسان. يا طالب الإمتاع عرج نحوه، فلك انجلاء الهم والأحزان. يا الفرقان يا نجما سرى، فهدى القلوب لبارئ الأكوان. فيك النفوس تعارفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا بما تغضبه وتعباه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بما هدسك سبحانه وتعالى فرصدا نسيي إنه عافمات قبنا إن شرعي سي دينتيس wax kamid ah aan isu sheegno oon ka kala faa'iideysano mowduucan oo aan hadda bilaabayno. waa mowduuc xasaasi ah oo ugu talagalay in bal dadka ay ku hagaajiyaan noloshooda ama guryahooda. ilaahi isaga dadka abuuray, maadaama uu abuurayna siday u dhaqmayaan isagaa u sheegay sida ugu wanaagsan ay u dhaqmi karaan oo wanaagooda uu ku jiro. raggana waxbuu ilaahay ugu talagalay, dumarkana ilaahay waxbuu ugu talagalay. xiriirka ka dhaxaynaya iyo siday u wada noolaanayaanna ilaahay isagaa noo dejiyey. sida ugu wanaagsan ee hadday u noolaadaan ay ku badbaadayaanna uu noo sheegay. hadday khilaafaan ay halis galayaanna ee ilaahay uu noo sheegay. marka cinwaankeennu waxa weeyaan oo maanta aan ka hadlayno isdhexgalka ay isdhexgalaan ragga iyo dumarka meelaha ay ka shaqeeyaan iyo suuqyada iyo guryaha iyo oo aan la kala habaynin oo la kala qorshaynin, iyo saamaynta xun iyo halista uu ku leeyahay bulshada meeshaas ku nool ee qaabkaas. len ilaahay subxaanahu watacaala isagaa marka xadiday, isagaana sheegay waxa dhex mari kara ragga iyo haweenka. marka meesha ciwaanka darsigu yahay waxaa laga fahmayaa in ragga iyo haweenka sida diinteenna ay sheegayso ay ugu talagashay inaanay iswada dhex gelin, inay kala dhowrsoonaadaan, inay kala joogaan, inay kala xadidnaadaan. wixii dhex mari karaana ay noqdaan wax sharciga waafaqsan, oo hadday isu imanayaan ama isdhexgelayaan si nabad qabta oo aan bulshada dhib uga imanaynin, oon raggiina dulmi ku ahayn, gabdhihiina dulmi ku ahayn, lagu khayaani karin qolo iyaga ka mid ah, dhibaato loogu geysan karin, inay isu dhexgalaan. aanay ahayn uun inay isku sii dhex yaacaan sida ay gaaladu ay qabto. marka waa mowduuc runtii aada u ballaaran oo aan rabo haddii ilaahay yidhaahdo inteenna wada dhegaysataa inaan aada u dhuuxno, leanno waxaan u jeedinaynaba waxa weeyaan in aan ku badbaadno oo qofkii fahmaa oo waddadaa wanaagsan uu qaado uu badbaado. marka insha allahu marka mowduuca waxaan soo qaadan doonaa qur-aanka muxuu ka yidhi haweenka iyo ragga isdhexgalkooda. waxaan soo qaadan doonaa axaadiista maxay ka yidhaahdeen oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan wax ka soo qaadan doonaa. waxaan soo qaadan doonaa aqwaalulculamaa, culimmada islaamka ee hore iyo madaahiibtii maxay ka yidhaahdeen dumarka iyo ragga iyo isdhexgalkooda. waxaan soo qaadan doonaa ducaatu likhtilaat fi alcaalam alislaami, dadkan muslimiinta ku dhex nool ee haddana nidaamka gaalada dadka ugu yeeraya oo faraya in meel walba haweenta iyo raggu isdhex boodaan. waxaan kaloo soo qaadan doonaa waxyaabaha loo adeegsado in la buunbuuniyo in dumarku ay soo baxaan oo ragga ay dhex galaan, waxyaabaha loo adeegsado dadka lagu booriyo. waxaan soo qaadan doonaa haddii rag iyo dumar ay isdhex galaan saamaynta ay ku yeelanayso diintooda, saamaynta ay ku yeelanayso bulshada, saamaynta ay ku yeelanayso xataa waxbarashada, saamaynta ay ku yeelanayso labada qoloba dumarka iyo raggaba oo iga iman karto,
saamaynta ay ku yeelanayso qoyska iyo dhismihiisa, saamaynta ay ku yeelanayso dhaqaalaha iyo saamaynta ay ku yeelanayso caafimaadka. marka arrimahaas oo dhan ma ku dhammayn karno siday aniga ila tahay galabta oo keliya, xitaa ma u malaynaya inay noogu dhammaanayso berri galo. degdegna ani kolley iguma jiro mawduucan. waxaan rabaa isaga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa aniga inaan ka hadlo, marka degdegna ma qabno. laakiin waxa hadafku waxa waaye inaan leanna waa cudur inagu dhacay oo si fiican inoo galay oo ina baabi'iyey, oon ka caado yeelannay, oon ku qanacnay, oo bulshadii lafaha ka galay in meel walba wiilii gabar is ag fadhiyaan, meel walba naniyo naag isgarab fadhiyaan, meel walba ay ku wada jiraan. marka cudurku markuu sidaas hoos ugu dego si fudud haddii looga hadlo oo gaaban waa adag tahay sida looga baxo. marka si oo tartiib ahoo aan aad u hoos ugu galayno, bal axaadiista ilaahay iyo nabigu wuxuu ka yiri iyo qur-aankii wuxuu ka yiri iyo culimmadii waxay ka yiraahdeen iyo dadka aqoon-yahanka waxay ka dhaheen iyo saamaynta uu leeyahay baynu. marka waxaan rajaynayaa inaad bal dhagaysataan, dhuuxdaan, isku daydaan markaa inaad dhaqan gelisaan. inteenaan hadda ismaqlaysa yani wax loo barto, wax loo sheego waa maxay? in wixii wanaagsan waxa loo sheegaa in la qaato, soo sidaa ma ah. marka in qof walba, gabadh walba ay iyadu isku dabaqdo, hadday hooyo tahay ay ilmaheeda ku dabaqdo, muxuu ahaa baan xoogga saarayna insha Allah. marka bal aan soo qaadana hadda, waxaan soo qaadanaynaa hadda aayadaha oo inta badan ka hadlaya inay rag iyo haweenka kala joogaan. marka aayaduhu inta badan haweenkay la hadlayaan, waayo nolosha marka la nool yahay haddee shaqadii iyo bannaankii raggaa loo diray. waxa marka la leeyahay ha soo dhexgelina waa dumarka. waxaa la leeyahay ragga ha soo dhexgelina waa dumarka. mid maskaxdiina ku haya wixii daruuraha hadda ka hadli mayno. haddii gabadha cid u shaqaysa ay weydo way soo baxaysaa, waa shaqaysanaysaa. hadday cilmi guriga ku weydo way soo baxaysaa, way baranaysaa. laakiin markaana xuduud bay leedahayoo shaqo aanay sharafteeda waxa u dhimaynin oo dumarnimadeeda iyo haweennimadeeda aan xadgudub lagu samaynaynin bay gelaysaa. waxbarasho aan shardi ahayn in iyada markaa sharafteedii wax loo geysto ayay gelaysaa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay aayad dheer qayb yaroo ka mid ah oo lagula hadlayo xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam, waqarna fii buyuutikunna. suurat alaxzaab weeyaan aayad ku jirta qayb ka mid ah. haweenkii nabiga inta ilaahay lasoo hadlay wuxuu leeyahay haweenkii nabigow waqarna fii buyuutikunna, waxaa ku xasishaan oo ku degtaan oo iska joogtaan guryihiina dhexdooda iska jooga. marka aayaddani waxay horta ku wajahan tahay xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam. laakiin waxa isweydiin mudan xaasaska nabiga waxa weeyaan maadaama nabigu uu yahay calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ummaddiisa ninka ugu fadli badnaa, waxaa la rabaa in la nadiifiyo gurigihiisa. maxaa laga rabaa in laga dhigo xaasaskiisa? waxa rabaa noqdaan dadka ugu fiican dumarka. marka waxaa ilaahay farayaa marka waxa ugu fiican ee qof dumara laga rabo. marka waxa xaasaska nabiga la faro macnaheedu waa maxay? wax dumarka u fiican wey. markaasa waxaa la leeyahay waqarna fii buyuutikunna, ku ekaada guryihiin, walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati alulaa, ha banbixina, ha isbanbixinina, ha ismuumuujinina sidii gaaladii hore markay dadka islaamka aanay ahayn dumarkoodu ay dabadda inay baxaan, ay markaa iyagoo qurux badan oo aada u labistay intay dabadda u baxaan ay aada u jeclaan jireen marka in la arko intay ismuujiyaan. marka haweenkii nabiga waxaa leeyahay waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati alulaa. aayaddaas marka isagoo fasiraya tafsiirka qurdubiga wuxuu leeyahay aayaddan waxaa ku sugan buu leeyahay oo ku jirta aayadda in la farayo haweenkii nabiga inay guryahooda joogaan. hadalkaasina inkastuu iyaga ku jeedo
laakiin waxaa soo gelaya buu leeyahay dumarka kale oo dhan maxaa yeelay wuxuu leeyahay waa arrin u wanaagsan dumarka marka wixii dumarka u wanaagsanna haddii haweenka nabiga kaliya lama farina waxaa la faray dumarka oo dhan halkaa marka waxaan uga baxaynaa aayaddaas ma raba inaan kusii dheeraado daliilka markaan mid sheegno way iska caddahay midna aayaddan way caddahay hadalka ama fariinta aayaddan ay kuusoo gudbaysay waxa weeye gurigaaga u bado dumarow gurigaaga u bata haweenkii nabigaa laga bilaabay leanno fiiri qur-aanka markii xataa xijaabka la isfaraya waa noo soo socdaay yaa xijaabka dadka faraya nabigaa laga bilaabay yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika sooma haddaanu isagii wax farin raggii kale maxaa laga sugaya marka ma fari karaan marka haddana haweenkii baa la rabaa in la dhaho guryihiina ku ekaada yaa laga bilaabayaa marka kuwii nabiga salaade kuwii nabiga hadday ku ekaan kuwa kale yeeli maaya marka fariinta ay aayaddaa suuratul axsaab ay ina gaarsiisay oo qof kastoo dumara oo caqlile ay gaarsiisay waxaa weeyaan in ay gurigeeda ku ekaato fariinta aayadda labaad qur-aanka aan soo qaadana waxa weeye aayad kaloo iyadana ku wajahaan isla haweenkii nabiga isla suuratul axsaab wuxuu ilaahay leeyahay aayad dheer qayb ka mid ah waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن آيادا waxay ka hadlaysaa asxaabta nabiga oo ragga ah baa marmar waxay iman jireen guryaha nabiga hadday yimaadaanna marna nabigaa jooga marna xaasaskiiaa jooga xaasaskiina way is yaqaanaan oo qaarkood qaraabay yihiinoo qaarkood deris bay yihiinoo kollayba marmar inay la hadlaan baa suuroobaysa marka sidee bay ula hadlayaan markii nin uu rabo inuu guriga nabiga yimaado oo xaasaska nabiga uu wax weydiiyo sidee bay ula kulmayaan oo u wada hadlayaan baa aayaddan ay ka hadlaysa ilaan xaasaska nabiguna waa xishoonayaan nabiguna laftirkiisu waa xishoonayey dadkiina waa xishoonayaan oo guryaha imaanayay marka nidaam oo wanaagsan oo ay kula kulmaan oo ay kula hadlaan xaasaskii nabiga oo hooyooyinkooda weliba ahaa ayaa la sheegaya marka waxaa leeyahay waidaa sa'altumuuhunna mataacan haddii aad xaasaska nabiga rabtaan inaad wax weydiisataan oon alaab iyo waxay doontaba ha ahaatee fas'aluuhunna weydiista min waraa'i xijaab isagoo wax idinka xigaan isagoo xijaab isagoo mara ay idinka xigto ama derbi idinka xigo ama wax un idinkala dhex yaallaan weydiiya ha soo hor istaagina oo ha soo hor mutuxnaanina aayadda marka way sii sababaysay waxaa la qofka raba inuu caaisho la hadlo oo xaaska nabiga ama xafso u la hadlo ama sawdo u la hadlo waxaa la yidhi markaad la hadlaysid oo guriga imaanaysid ha hor istaagin oo iyadoo meeshaan taagan adna halkaan soo istaagine ha idiin dhexeeya xijaab waxaa imaanaysa marka qofka inuu yidhaahdo sabab isla suuraddaa sababaysay waxay leedahay dalikum adharu asla aayaddan dhihi lahaa dalikum adharu liquluubikum wa quluubihina dalikum sidaasaa adharu oo u daahirnimo badan liquluubikum idinka quluubtiina oo ragga ah markaa xaasaska nabiga la kulmaysaan iyo wa quluubihina iyaga quluubtooda labadaba haddii la fiiriyo qalbiga ragga oo la hadlaya haweenka nabiga waxaa u fiican in xijaab uu ka xigo haddii la fiiriyo qalbiga haweenka nabigana waxaa u fiican in raggaasu la hadlaya xijaab uu ka xigo ayna arkayn taa macnaheeda marka waa iska caddahay waxaa laga wadaa inay haweenkii raggu toos isu arkaan qalbiga uma fiicna waxaa qalbiga kasii fiican inayna toos isu arkin dalikum adharu liquluubikum wa quluubihim sheekh la odhan jiray maxamed alamin ashanqiidi markuu aayaddaas fasiraya wuxuu leeyahay aayaddan waxaa laga fahmayaa haddii xijaab idiin dhexeeya qalbiga u fiican waxaa laga fahmayaa haddaanu xijaab idiin dhexaynina qalbiga uma fiicna haddaanu xijaab idiin dhexayninna qalbiga uma fiicna ayaa laga fahmayaa buu leeyahy ila waa run mar haddii la yidhi dalikum adharu liquluubikum quluubihim sida kalena marka qalbiga uma fiicna
fariinta marka aayadan laga qaadanaya waa maxay iyadana waxa laga qaadanayaa haddii aayaddii hore ay haweenka ku amartay inay iska joogaan guryaha oo ay socodka yareeyaan aayaddanna ay saxaabadii nabiga ku amartay hadday u yimaadaan haweenkii nabiga in muxuu ahaa haweenkaa nabiga aanay si toosa u qaabilin ee ay xijaab ugu dhexeeyo labadaas oo laysku daray waxaa laga fahmaya mar walba in la ilaalinayo raggii haweenku inay isdhex galaan hadday isdhex galaanna inuu dhib ka imanayo aayaduhu ay tilmaamayaan aayadda saddexaad aan soo qaadana suuratu nuur suuratu nuur laba aayadood oo ku yaallo weeyaan qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum ina allaha khabiirun bima yasnacuun waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون آياتها لبدان آيات ونفسرين إن شاء الله آيات كواد عليها إلهي سبحانه الله الله رجع قل للمؤمنين رجع مؤمنين تحكوا تراهبان يغضوا من أبصارهم إنه هذا هاللعبة dumarka yaana indhaha ku eegine ha ka laaban wayaxfaduu furuujahum farjigoodana ha ilaaliyaan xubnahooda ama cawradooda zinada ha ka ilaaliyaan daalika sidaasa askaa u nadiifsan lahum iyaga inay indhahooda laabaan ayaa u nadiifsan oo qalbigooda iyo iyagaba nadiif u ah oo haddii raggu ay dumarka eegaan sidaas nadiif uma aha dhibaata ka soo gaarayso hadday laakiin indhaha ka laabtaan nabad iyo nadiifnimo ugu jirta ilaan ilaahay wuxuu leeyahay daalika askaa lahum saasaa u fiican marka sida innaga inoo fiican ayaa noo sheegaya ilaahay subxaana wa tacaala marka raggii baa la leeyahay inaad dumarka fiirisaan idinma fiicno waxaa idin fiican dumarka inaad indhaha ka laabataan ina allaha khabiirun bima yasnacuun ilaahay wuxuu og yahay waxa ragga ay samaynayaan maadaama aayadda ay fiirin ka hadlaysa maxay samaynayaan ragga macnaha ragga aan u hoggaansamaynin amarkan ee indhahooda dumarka ku fiirinayo oo ku sii eegayo oo inay daawadaan raba ilaahay kuwaas waa og yahay ina allaha khabiirun bima yasnacuun waan u malaynayaa tafsiirka inuu noo imaan doono haddaanan qaldanayn noogu imaan doono meesha laakiin ragga oo sida noo imaan doonto oo laga hadlayo aayadda ka hadlaysa waxaa weeye dumarka way fiirinayaan waa ka jeesanayaan markay cabaar joogaan ay fiirinayaan macnaha indhahay ku xadxadayaan kuwaasa waxaa la yidhi in allaha khabiirun bimaa yasnacuun waa sidii aayaddan markay soo degaysay saxaabada nabiga munaafiqiintii ku dhex jiri jiray waxa ay samayn jireen laakiin hadda markaad dhaqankeenna fiiriso maxaa waay raggii meel bay soo fadhiisanayaan waxay usoo fadhiisanayaan wixii naag meesha soo martay inay fiiriyaan ma aha intay eegaan kama jeesanayaan waxay u soo fadhiisteen inay daawadaan taa marka maba ahaba in allaha khabiirun ma aha qofkan waaba qof kusoo talagalay inuu wax daawado aayadahan waxay ka hadlayaan qof xoogaa xishood ku jiro oo mar eegaayo marka shaydaankaa la eeg haddana waa eegayaa haddana kaasaa la leeyahay in allaha khabiirun bimaa yasnacuun innaga hadda waa dhaaftay meeshaas or meeshaan maxaa usoo fadhiisatay gabdhahaan inaan daawado
ama wuuba shidanba filim wuuba shidanba oo gabdho ka buuxaan wuxuu leeyahay waxaan u shitayba inaan daawado naagahan ciyaara inaan daawado maalin dhawid waa tii lahaa ciyaaraha la qaban marka ciyaaraha markay gabdho ciyaarayaan qofka garoonka soo gala muxuu daawanayaa gabdho ciyaaraya soo ma aayaddaana maxay leedahay qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim ilaahay wuxuu leeyahay ragga waxaad ku dhahdaa indhihii laaba haddaan aniga garoon gabdho ku ciyaarayaan soo galo waxa ciyaarayana ay gabdho yihiin anna aan u soo galay inaan fiirsado iyo aayaddan xaggay kala joogaan soo bariya galbeed ma wax shaqa iskule maaha ama naaga heesaysaan fanaanadan soo galay meeshay ka heesaysa waxaan u soo galay inaan daawadaba marka haddii ilaahayna wuxuu leeyahy waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim waxaad ku tiraa mu'miniinta indhihiina laaba in allaha khabiirun bimaa yasnacuun taas marka waa aayadda qaybta hore aayadda koowaad waxaan gelaynaa aayadda labaad waqul lilmu'minaati waxaad gabdhahana ku tiraahdaa marka yaqdudna min absaarihinna indhahooda iyaguna ha laaban iyagana raggayay eegin wayaxfadna furuujahunna cawradoodana zinada ha ka ilaaliyaan waa sidii ragga la faray iyaga waxaa loogu daray marka walaa yubdiina ziinatahum yayna muujinin quruxdooda quruxda ilaahay dumarka siiyey oo jirkooda ah yaanay soo bandhigin ilaa maa dahara minha waxay iska muuqdo ay qarin kari weyda mooyaane ee meesha waxaa la tusi canaa shareecadeena islaamka waa naxariis badan tahayo adiga wixii awooddaada ka baxsan laguguma haysto adiga quruxdaada qari intii aad qarin karayso wixii marka quruxdaada ka mid a oo aadan qarin karin lagu qabsan maayo tafsiirka ugu fiicana lagu fasiro waxa weeye dee haweenta haweennimadeeda ma qarin karto haddii si kastaba labisato waa qof dumar oo meeshaa taagan waddada markay marayso qof dumaraa maraya marka ma qarin karto jirkeedii oo dhan markay mara ku wada daboosho weli waa haween waxa meesha jooga waa un haween marka haweennimadeedii ma qarin karto oo dee nin baa meesha maraya la dhihi maayo hilibkeeda ma qarin karto hadday caato tahay hadday buuran tahay dherarkeeda ma qarin karto hadday gaaban tahay hadday dheer tahay waxyaabaha noocaas oo qofka markaa ilaahay ku abuuray oo hadday dhar kasta ay qaadato ee aan muxuu ahaa ayna qarin karin ayaa loola jeedaa baa la yidhahdaa walyadribna bikhumurihinna calaa jiibihinna meel kastoo jirkeeda ka babannaan waa inay maro ku dabooshaa walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda ayaanay muujin nimanka marka ayna ka xijaabanaynin ayaa la tiriyey ilaa waxaa la yidhi nimanka qaba mooyaane ama nimanka qaba aabbayaashood oo sodogeedii a mooyaane iyo aabbaheedoo iyada dhalay ninkeeda iyo aabbaheed iyo ninkeeda aabbihiis iyo wiilasha ay dhashay iyo wiilasha ninkeedu dhalay iyo walaalaha iyada la dhashay iyo wiilasha ay eedada u tahay iyo wiilasha ay u tahay habaryarta intaas waa ragga haweentu ayna ka xijaabanaynin oo maxramkeeda ah waxaa kaloo ayna ka xijaabanaynin oo qur-aanku uu sheegay dumarka ow nisaa'ihinna haweenkaasna culimada waxay ku fasireen haweenka muslimiinta ah ilaan waxaa la yidhi ow nisaa'ihinna haweenta hadday gaalo tahay in laga xijaabtaa iska fiican waxaan kaloo laga xijaabanaynin ow maa malakata imaanuhunna addoommadii waagii hore jiri jiray hadda ma jiraan ow itaabiciina hayru lilirbati min alrijaali iyo ragga dumarka lagu tiriyo oo wax dan ah aan dumarka ka lahayn oo ragga ka tirsan raggaas maxaa laga wadaa التابعين وحالي روا كو اسكا راعه دمرك اسكا راعو aan ragga ku tirsanaynba غير ulil irbati wax dan ah oo ay kala yihiin ma jirto haweenka oo min rijaal oo raggeena kamid yihiin waxay culimadu leeyihiin
tafaasiir badan baa lagu bixiyaa laakiin hal mid baa wax dhan soo koobayo waa ninka la hubo inuun wax raganimo a lahayn oo hawo dumar ayna meelna ka soo gelayn waa ninkaas marka kuuraba ha ahaada marka kuuraba ha ahaada waa nin aan hawo naageedba meel ay ka soo gelaysa aanay jirin ama jiro haysa darteed ama si kaloo ilaahay u abuuray darteed kaasaa la yidhaahdaa kaasoo kale marka haweentu inay ka xijaabato waxba shardi ma aha wadaad tafsiir akrinaya waxaan u malaynaya waliba tafsiirkiisa inuu ku duuban yahay raadiyaha idaacadaha qaar ay sii daayaan haddaanan qaldanayn baa meeshan tafsiir khaldan ku khalday tafsiir khalada buu ku fasiray wuxuu yidhi ragga in haweenka xijaabanayn waxaa ka mid ah ragga aan haweenka wax damaca ka lahayn oo qur-aanku sheegay waana run waa ragga haweenka wax damacaba aan ka lahayn waxaa loola jeedaa ilaahay baaba ka qaadayba awooddii raganimada asagoo laakiin saas uma fasirin wuxuu yidhi waa ragga aan haweenkaba damaca ka lahaynoo la hubo inayna haween dhib u geysanayninoo sida wuxuu yidhi wadaadada xirta ah oo masaajida muxuu ahaa ee cilmiga ka raacda iyo xerooyaashaas sida kuwaas kulaha waa qaldaya wadaadkaas marka xerow isaga wax ka dhib badan ma leh xerowgaa ugu dhib badan marka xerowgu wax ma haysto masaajidaasu wax ka raacdaa xoolo uu haween ku guursadana male waa rabiyaa laakiin naag waa rabiyaa marka naag laguma aamini karo marka de ilaan wax la-aan baa naag la-aan ka dhigtay hadday marka naag iska aaminto tiraa kaa xijaaban maayo xerowga ha ka xijaabanaa la yiri balaayaa ka dhacaysa marka wadaadkaas tafsiirka meesha uu ku khalday iyo aan lagu raacin waxaa laga wadaa ninka aan dumarba hawaysanaynin waxaa la yidhi waktigii nabiga nin baa jiri jiray oo saas oo kale ahaa wuxuu ahaa nin naag camal iska ahoo aan waxba aan haba yaraatee aan naagaha waxba dan aan ka lahayn oo iska ilaahayba uusan ku abuurinba awood raganimoba marka waxaa la yidhi dumarka kamay xijaaban jirin waana dee qof ilaahay saas u abuuray moogtahay waa musiiba iska haysata marka laakiin maalintii dambe waxaa la yidhi nabigaa wuxuu arkay isagoo haween la fadhiya oo weliba aan ka u malaynaa haweenka nabiga inay ku jireen buu ag fadhiyey markaasuu markuu nabigu agtiisa soo maraayay buu wuxuu maqlay isagoo haweenka tilmaamaya oo leh haweenka quruxdooda saasaa ka mida saasaa ka mida saasa aad buu nabigu u yaabay marka wuu yidhi ninkaan soo hebel ma aha markaasay dhaheen haa orodoo tag buu yidhahday wuu ka tegay meeshii wuxuu ku hadlaya ma maqlayseen buu yidhi haa mar ha ka hadda kadib ha laga xijaabta wuxuu rababa ha ahaaduuba haweentil tilmaamaayo kan layskuma aamini kara buu yidhi ha la iska ciiri marka awi taabiciina kayrul irbatidaas waxaa soo gelaya maalan qof waayeel ah qof duqoobay nin duqoobay oo waayeel ahoo waxba oo halkaa iska saaran sariir iska saaran waxba haweenta inay ka xijaabata maa maxay qof tacbaan oo waayeelo waxaa soo gelaya maalan hadduu jiro qof jiradii ka badatay intaasoo sano jiradaa mariil noqday oo maralnimadii ka dhammaato meel iska saaran oo dhimasho uun u dhiman tahay maahane meel iska saaran waxaasaa la yidhahda oo haween iyo hawadooda aanay ku jirin kama xijaabanayso waxaa kaloo haweenta ayna ka xijaabanaynin aw idifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati nisaa carruurta yaryar oona cawrada haweenka aqoonin qur-aanku waa cajiib lama dhihin haweenku carruurtii ay ka xijaaban waxaa la yidhi maya carruurtoo dhan ma aha haweentu waxayna ka xijaabanaynin carruurta aan cawrada haweenka aqoon macnaha aan haween waxba ka aqoonin laakiin ilmuhu ayagoo yaryar hadday haween wax ka bartaan sida hadda aakhiru zamaanka hadda aan ku jirno waagii hore dadku ayagoo soo weynaaday oo soo qaangaaray aa laga yaabaa ninkani inuu naag waxba ka aqoon haween inaan rag waxba ka aqoon hadda waxa waaye afar jirkay kusoo bilaabaan yani waad tacajabaysaa afar jir ayaa muxuu ahay isagoo wiil gabdho ka sheekaynayo afar jir gabar ahaa niman ka sheekaynayso waa aakhiru zamaan hadda aan ku jirno dhib badan waagii horena dadku waa weynaan jireen ayagoon shaqaba isku lahayn gabadh weynaatay oo rag ba aan shaqo ku lahayn oo aan la sheekaysanin oon aqoonin oon ka fikirayn aa la heli jiray iyo wiilal waa weynaaday oo gabar aan weligood la hadlin baa la arki jiray hadda laakiin maya marka meesha maxaa laga fahmayaa carruurta haweentu way ka xijaabanaysaa haddii ay yihiin carruur
oo ka hadlaaya wiilal yaryar laakiin dumarka ka hadlaya oo ka sheekaynaya oo cawradooda yaqaana oo hadday aragto way ka xijaabanaysa laanna qur-aanku wuxuu leeyahay aw tifli caruurta aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisaa aan waxba ka garanayn haween jirkeeda iyo cawradeeda iyo wuxuu yahay iyo waxba aan ka garanayn intaa markii lasoo sheegay waxaa la yidhi gabdhihii baa si gaara loola hadlay waxaa la yidhi walaa yadribna yayna garaacin biarjulihinna lugahooda yaanay garaacin oo dhulka yaanay ku garaacin markay soconayaan liyuclama si loo ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda ah waagii gaaladaa samayn jiray waqtigii nabiga ka hor gabdhaha gaalada waxay samayn intay dhar soo gashtaan oo ay lugahana jijimooyin soo gashtaan lugaha ka soo buuxiyaan ayay xoogaa markay soconayso lugaha dhulku garaacaysaa markaasaa jijimihii lugaha ugu jiray yaa markaa shalalaqdoodii la maqlayaa shababax wallaahi haweenta meeshaan maraysa lugaheeda waxaa ka yeeray imisaa jijin baa tolo ugu jira innaga hadda lugaha ma gashanaan u malaynaya laakiin hadda waa un la gashadaabaan isle hadda wax walba waa la sameeyaa marka waxaa la yidhi gabdhaha muslimiinta ah markay soconayaan yayna isluxluxin lugahoodana dhulka ay ku garaacin si loo ogaado sanqarta inta la maqlo inay wax hoos ka xiran tahay jijimo waaweyn waxaa lamida kabahan qabacdaloo hadda gabdhuhu ay qaataan waa khatar gabadha muslimadda ah inay qabac dhaha intay qaadato markay waddada maraysa dadka dhan soo wada eegaan qaac la soo wada waa maxay wax yeeraya la yidhaah dadkiiba inay soo eegaan iyadaa sabab u ah marka inay sanqadheeda qarsato oo kaba aan sanqar lahayn ay qaadato yaa xishoodkeeda ku jira watuubuu ilaahay wuxuu yidhi toobadkeena ilallaahi ilaahay u toobadkeena jamiican sidaa u dhan tihiin ayuha almu'minuun dad yahu mu'miniinta lacallakum markaasaa waxaa mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan marka aayaddan dheer waxaynu u akrinay wax kale maaha mawduucaynu ka hadlaynaa wuxuu ahaa bal hadda aayaddan inta wax ay sheegtay ma waxay ogol yihiin isdhexgalka mise waxay diidayaan isdhexgalka waxaa la sheegay inaan la isfiirinin haddii wiilal iyo gabdho meel isugu yimaadaan isla jooga hana isfiirinina ma suuragelayso haddaan aniga xafiis inta fadhiya gabarna inta ii fadhiso aan dhaho xooghayntaydii waaye ayadana aan dhaho ha fiirina lagu yidhi ha isoo fiirin anna aan dhaho ha fiirina ku fiirin mahayo xafiisna aan wada fadhino wax caqliga gelaya maaha marka muxuu caqligu keenayaa dee inaanan xafiis wada fadhiisan haddii ay gabadhii xafiiskii fadhida anna aan fadhiyo qasab waan fiirinayaa iyadana waa ay fiirinaysa xeel suuragalba maaha meelna aan wada joogna yaanaan isfiirinin wax caqliga gelaya maaha suuqii haddii la wada joogo waa run waa la isfiirinayaa sidaa daraaddeed mar haddii laleeyahay ragguna indhahooda ha laabtaan gabdhuhuna indhahooda ha laabtaan waxay keenaysaa inta badan inaan laysla joogin mararka laysu imanayaa ay noqdaan daruuri marar laga maarmi waaye ha gabadhii waxbay iibsanaysaa qofka ay wax ka gadanaysa waa soo hor istaagaysaa waa ka gadanaysaa way ka tegaysaa bes waa daruuri laakiin maalin walba daqiiqad walba inay hor fadhido hor taagnaato waa sharcigu waa diidayaa marka sida aayadda laga fahmayo waxaa kaloo aayadaha marka ay si gaara u dabagaleen gabdhihii oo layidhi idinka quruxdiinna qariya sidiinaba markaas sideedabana haddii maxaa gabadha quruxdaada qari loo leeyahay macnuhu waxa weeye hadday isu soo qurxiso soo baxdo raggiibaa eegaya markay eegaanna fitna ka dhalanaysa waa intaa marka haddii la yidhaahdo hadda gabdhaha iyo wiilashu ha isla joogaan oo iskoolada ha isdhex fadhiistaan oo jaamacadaha ha isdhex fadhiistaan oo isbitaallada ha isdhex fadhiistaan oo xafiisyada ha isdhex fadhiistaan oo suuqyada ha isdhex fadhiistaan haddana ilaahayna uu leeyahay yayna soo bixin guryahooda ha ku ekaadaan yay ismuujinin quruxdooda ha qariyaan laba shay is aqbalaya ma aha waxaa yaab leh oo marka hadda innaga aan dhaqankeenna ka mid a hadda oo inaynu ilaahay uga toobadkeenna la rabaa gabadhu markay baxayso waxyaabaha gabdhaha laga kari waayo waay gurigaba markaad ka baxayso miyaad isa sii qurxinaysaa haa ay gabadhu ku leedahay haa waa isqurxinaya waan baxaya anoo qurux badan ilaahayna hadda muxuu lahaa maxaa aayadda ku qoran walaa yubdiina ziinatahunna yani ilaahay wuxuu ku leeyahay adiga quruxdaada qarso ha muujinin marka haddaad tiraha ani markaan baxay waa isqurxinayaa macnaheed wax sidaa daraaddeed baa marada gabadha ay qaadanayso sharcigaa gooyey waxaa lagu yidhi yudniina calayhinna
min jir waxaad isku qurxisoodan mara weyn ku gab bas xageeba laga arki marka marada aad isku dadayna waxa la waa inaanay mara qurux badan ahayn waa inaanay mara midab lahayn waa inaanay mara liidimo lahayn waa inay mara barafuun lahayn waa inay mara dhaldhalaalay ahayn waa inay mara caadi oo tahay waliba adag tahay oo jirko dhan ay qarinaysa marooyinka khafiifka ah oo jirka asturaynin waxba ma tarayaan waxaasoo dhan marka waxay ayidayaan in gabadha ay quruxdeeda qariso wixii marka quruxdaada qarinayo dhan waa inaad samaysaa wixii quruxdaada muujinayana waa inaad ka tagtaa nasiib darra maanta sida uu nabigu sheegay haweenku wuxuu yidhi nabigu waa halaabi doonaan waxaana soo bixi doonaa haween qaqaawan oo dharna gasha nisaa'un kaasiyaatun caariyaat nasiib darra marka haweenku maanta waxaad moodaa inay raadinayaan si kasta oo ay isu muujin lahaayeen si kastoo ay isu qurxin lahaayeen si kasta oo raggu u soo eegi lahaayeen nasiib darra haddana dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee inoo joogay ee meel walba maamulayaashiina waxaad moodaa inay jecel yihiin haweenkaa marka oo hadday iskuul tahay hadday jaamacad tahay iyo xafiis hadday tahay hadday wasaarad tahay hadday gabadha asturan waa la wada dhibsanaya wejigaa loo wada kuusaya gabadha is soo qurxisay oo muxuu ahay qoslayso oo nimanka hoosta ugu wada jirtana waa gabar fiican baa laleeyahay shaqadaa loo sii badanayaa mushaharkaa loo kordhinayaa ujeedada laga leeyahayna wax kale maahe dee in la daadaawadaa la rabaa ugu dambeynna mustaqbalkeeda lagu ciyaaro taasi marka waa waxa laba halaagba inoogu dhacayo mar waxa weeye adduunkii aan ku halaagsamaynaayo gabadhan isqaawisay ee isqurxisay iyadiina sharafteedii way ku ciyaaraysaa rag badanna sharaftooday ku ciyaaraysaa oo halkaa waxaa ka imanaya faaxisho iyo foolxumo iyo zine iyo qurun taa waa adduunyadii oo ceeb iyo mustaqbal xumo iyo halaag ka dhalanaya waana ka hadda aan ka dhex fadhina hadda aan dhex fadhinaa adduunyada aan dhex fadhinaa hadda ceebaha ka tagaan ma malayn kartid waxa hadda socda wax laga sheekeyn kara ma aha waagii hore waxaan maqli jirnay gabar baa uur xaaraana qaaday oo way isdishay ama waa la waayey aan maqli jirnay haddana waxaa maqlaysaa 3 cunugaa u joogo aabba aan lahayn 3 cunugaa gabadhaan mujeedaa 3 cunugaa u joogo aabba aan lahayn welina way boobooteena waa qaylina xaafaday dhex joogtaa waa isla fiican tahay dhaqankeena siduu usoo xumaanaya fiir marka ceeb adduunyo waa halaag markay haweentu soo labisato oo ragga dhex gasho cadaab aakhirana waa ka daran marka oo qofku markuu dhinto xagu ilaahay ka gelaya waxaad loola yaabo marka bal aayaddaa dheerna inaan xasuusano oo lagu gabagabeeyey watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun marka fiiradu aad bay u dhib badan tahay sheekh ibnu baas alcalaama almuxaqiq ibnu baas isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu leeyahay wahaakada amara allahu almu'minaat biqabdi albasar wa xifdi farj ilaahay wuxuu faray gabdhaha inay awradooda asturtaan farjigooda ilaashadaan indhahooda laabtaan wa cadami ibdaa'i ziina quruxdoodana aanay muujinin ilaa maa dahara minhaa waxay qarin kari weyda mooyaane wa amarahunna biisdaali alkhimaari cala aljuub meel kastoo jirkeeda ka bannaan inay khimaar kudsii daboosho ayaa la faray isagu markaa wuxuu leeyahay satri ra'siha wa wajhiha inay madaxeeda iyo wejigeeda iyo meel kastoo jirkeeda ka bannaan daboosho ayaa la faray buu leeyahay markaasuu su-aal isweydiinayaa sheekhaas khayr allahasi wuxuu leeyahay siday ku dhici kartaa marka in gabdhuhu indhahooda laabaan ragguna indhahooda laabaan hadday meel walba isdhex yaacsan yihiin hadday gabadhii nimankii meel walba la joogto siday indhaheeda u laabi kartaa ragguna indhahooda u laabi karaa waxaynu hadda soo akrinaan u malaynayaa haddaanan khaldanayn 3 aayadood ayaynu soo akrinay aayaddii koowaad waxaan soo niri waqarna fii buyuutikunna aayaddii labaadna waxaan soo niri waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab aayaddii saddexaad iyo afaraadna waa kuwaan qul lilmu'miniina iyo waqul lilmu'minaati aan isku darnay waxaan hadda gelaynaa aayaddii afaraad oo ilaahay uga hadlaya bal haween iyo rag sida la raba inay wada dhaqmaan cajaa'ibteeda mar la yidhi naagihii gurigiina ku ekaada mar la yidhi markaa naagaha la hadlaysaan xijaab ha idiin dhexeeyo mar la yidhi indhihiina ka laabta waxaasoo dhan ma inaan isdhex yaacnay nafarayaan mise inaan kala xadidnaano waxay nafarayaan inaan kala xadidnaano aayadda afaraad ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala walaa tattabicuu khuduwaati shaydaan inahu lakum caduwun mubiin waa qeyb aayadda ka mid a aayadda 168 ee suuratu lbaqara aayad kalaa jirto la macnaa odhanayso suuratu nuur yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuduwaati shaydaan
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. آيادا وآيات آدو قيمة بدن لبضا آيات وضبا إلهي يقول ولا تتبعها راعنا خطوات الشيطان تلابوين كشيطانك. ولا تتبعها راعنا خطوات الشيطان تلابوين كشيطانك إنه شيطان كلكم إذنك عدو إذنه مبين وعد. آياتك الإلهي يقول يا أيها الذين آمنوا وردتك إلهي رميه لا تتبعها راعنا خطوات الشيطان تلابوين كشيطانك. ومن يتبع خطوات الشيطان قفك الشيطان كتلابوين كيس راعة فإنه الشيطان كو يأمر وحو فراء بالفحشاء فالحمو والمنكر ذنب منكر يفرق. meeshan markaa labadan aayadood waxay leeyihiin may dhihin ha raacina shaydaanka ee waxay dhaheen ha raacina tallaabooyinka shaydaanka. meeshaas culimmadu waxay leeyihiin tallaabooyinka shaydaanka waxaa laga wadaa shaydaanku markuu adiga raba inuu ku dhumiyo hal mar boodku oran maayo. masalan haddii albaabkaas dembigii uu yaallo adigana halkan aad taagan tahay shaydaanka intuu ku buubiyo dembiga hal mar gal ku dhihi maayo. wuxuu ku leeyahay dembiga waa kaa fog yahay iska tallaabso halkan iska tallaabo inta u qaad waa qaadaysa. markaasuu ku leeyahay saa u taagnayd waa daashay tallaabada kalena qaad. haddaad tiraa dembigii xaggiisa war dembiga waa kaa fogii uu ku leeyahay haddana tallaabada kala qaad. markaad dembiga agtiisa tagto ayuu ku leeyahay nus tallaabo qaad. marka ha ku dhicin nus tallaabaa weli ku hara iska qaad ilaa marka dambe aad is aragto adoo dembigii dhex fadhiya. warkaan marka aayadahaas waxaan idinka codsanaha inaa u dhuuxdaan aayadan ah laa tatabicu khuduwaati shaydaan. leanna waxaa la ogaaday dembi kastoo la gelayo hal mar dalaq lama yidhaah. dembi kasta waxaad arkaysaa waxaad u qaadaysaa tallaabooyin aad u qaadaysaa. marka haddaad caqli leedahay maxaad joojinaysaaba tallaabada koowaad markaad qaado aad isgaranaysaa deeda dhinacan tallaabo u qaaday ka noqo. qofka laakiin aan isfahmaynin waa usii bogayaa asagoo ku dhacay ayuu arkaya. waxaan xasuustaa waagii aan yaraa waxaan xasuustaa markaan soomno annagoo yaryar markaan soomno ayaa ciyaalbaa waxay noogu yeeri jireen balooni. marka shaydaanka muxuu ku leeyahay nafta waxay ku leedahay haddaad balooni ciyaarta adoo sooman oonaan ku qabanaya. hadduu oon ku qabtana ma sii soomanaan kartid. shaydaanka muxuu ku leeyahay iska ciyaar waa adkaysanaysaa. markaasaan ciyaari jir. markaa balooniga soo ciyaarta shaydaanka muxuu ku leeyahay haddana waa dhimanaysaa afurka ma sugi kartid. afurka haddaa sugtid waa dhimanaysaa. iska cab maanta biyahaaga. hooyadaa iyo aabbaha sheeg anigu waa yarahay awalba maqaan gaarine waa yaraaye iska dhehe. markaasaan xasuustaa annagoo intaan guriga nimaadno aniga maanta balooni aan ciyaaray waa iska afuraya maxaa dhacay awalba waa yaraaye waxaas yaa kuugu sheekaynaya waa shaydaankii. marka tallaabada koowaad wuxuu ku leeyahay waa adkaysan kartaaye iska ciyaar wax yar ciyaar. ciyaartii markaad gasho wuxuu ku leeyahay si fiican u ciyaar. markaad si fiican u ciyaarto wuxuu ku leeyahay waa daashay oonaa ku qabtay soonka iska fur. markaas tiraahda soonka ilaahay maanfura waa yartahay maadaa qangaaray hooyadaa iyo aabbahan u sheeg. marka fiiri halkuu shaydaanku kaa gelay. marka tallaabo ilaa oo marka dambe uu kugu hubsado. gabadhaan la yidhaahdo ustaada badriya alcazaaz buug ay qortay ayay waxay kaga hadlaysaa tallaabooyinka shaydaanku uu ku lumiyo ragga iyo haweenka. marka bal si fiican u dhegaysta. waxay leedahay gabadhaan shaydaanku tallaabooyin buu marsiiyaa ragga iyo haweenka si uu dembi u geliyo. markaan ragga iyo haweenkii ka hadlaysa waa kuwa wanaagsan. kuwa xun waabu halleeyey ma ogtahay. waxay leedahay shaydaanku wuxuu leeyahay uu ugu sheekeeyaa ragga iyo haweenka. gabadha wuxuu leeyahay wiilkan aad arkaysid waa wiil wanaagsan oo akhyaar ah oo edab badan oo diin leh oo xishood badan. markaasuu wuxuu ku leeyahay wiilkan gabadhaan aad arkaysid waa gabar wanaagsan oo edab badan oo qurux badan oo akhyaar ah. markaa wuxuu intaa bas labadoodiibu isu ammaanay keliya.
marka gabadhii wiilkii bay aaminaysaa wiilkiina gabadhii buu aaminaya way isbarteen marka ama iskuul bay isla dhigtaan ama jaamacad bay isla dhigtaan ama dugsi bay isla dhigtaan ama guri bay wada joogaan qaraabo weeye ama dukaan bay wax ku kala iibsadaan waxay rabtaa ahaad laakiin gabadhii wuxuu leeyahay ninkani waa akhyaar ninkiina wuxuu leeyahay gabadhani waa akhyaar waa tallaabada koowaad tallaabada labaad wuxuu leeyahay wiilka kan akhyaarka ama gabadhan akhyaarka ah maad si fiican ula sheekaysatid markaasaad waxaad arkaysaa ay leedahay waa gabadhaa ka sheekaynayse wiilkii oo gabadhii u sheekaynaya gabadhii oo wiilkii u sheekaynaysa marmar oo wixii yaraayee ka dhaxeeyey kasii gudbay oo wada sheekaysanayaanoo ay wada kaftamayaanoo iswada dhoolla cadaynayaan ayaad arkaysaa waa tallaabada labaad tallaabada saddexaad wuxuu shaydaanku leeyahay weer haddana war gabadhaan wanaagsan eed baratay ee akhyaartee edabta badan ee weliba kula kaftamaysa maad mar si fiican ula sheekaysidoo aan is aragna tiraahda awal ilaan meelihii iskuulladii ama jaamacadihii ama muxuu ahaa dukaankii ama suuqii la isku arkay wax kaloo dhaxa ma jirin bal maa la hadlidoo si gooni ah aada u wada hadashiin taasaa ku xigayso waayahaley marka waa la ballamay walaalay haddaan bal sheekaysano ka warrano si gaara isu aragno iyadiina wax leeyaha haa waa wiilkii aaminka ahaayoo fiicnaa waa inaad si gaara ula sheekaysato si gaaraa la isugu yimid tallaabada afaraad muxuu leeyahay war u sheegoo gabadha dhan waa gabadh wanaagsane waa ku jeclahayoo kaamo maarmo oo waa kugu riyoodaa oo ku bilow marka adiga iyadana wuxuu leeyahay adigana waxba aad ka qarsanin amba waa kugu taamayo waa kugu fikiraayo intaasi amba waa igu jirtay waa tallaabada afaraad bes wuxuu ku xijinayaa marka waa isfahamteena markaa sheekaysta oo ballama oo marar badan is arka oo isu yimaada oo halkaasaa marka gabadhaanaa ka sheekaynaysa waxay leedahay meeshaas waxaa ka dhalanaya marka inay sir yeeshaan isqarsadaan ballamo hoose galaan marar badan isu yimaadaan meelo cidlaha isla tagaan gabadhaan marka siday buugga u qaraysa waxay leedahay iyada ragga iyo haweenka way kala duwan yihiin bay leedahayoo haweenku marka hore ay hawshaas ay wataanba daacad bay ka tahay laakiin waxay leedahay ragga 9% waa laba wajiile oo wuxuu leeyahay gabadha tan haddii aad khiyaamayn karto ku tijaabi haddaad khiyaamayn kari weydo runba u guurso hadhow run uga dhigo warka kan midi laba afle bay rag wataan gabadhaan siday leedahay marka wuxuu leeyahay rag badan gabadhii sidaa u aamintay bay marka dambe waxay ku baraarugaysaa iyagoo khiyaanay oo siday ula hadlayeen haddee meel xun geeyey halkaasay gabadha ka soo qaadaysaa waxay leedahay marka gabadhii baan waaga dambe waxay is arkaysaa iyadoo ninkii uu si xun u galay oo faaxisho uu geliyey oo kadibna uu uga baxay oo uu inkiray oo iyadii waaga ku baryey oo ceeb ay ku soo baxday oo ay yaaban tahay sidaasay meeshan kusoo qoraysa waxay leedahay wayakhruju rajul kaan lam yakhuda tilka tajriba waana sax wey waxay leedahay gabadhaas ninkaasi markuu khariboo halleeyo wuu iska dhaqaaqayaabay tiri sidiina anaan dembi falin wa kaan lam yacish tilka laxadaat waxaabad moodaa inuu arrimaheeda waxba ka ogeyn yaluumuhaa kamaa yaluumuha aljamiic siday dadkao dhan gabadha u xamanayaan ay leeyiin gabadhaas waa xumaatay waxbaa xumaa ku soo baxay iyo asna u xamanaya waa gabar xun buu leeyahy dhinaciisa wa yaciiruhaa kamaa yaciiruha alaakharuun wuu ceebaynayaa siday nimanka kaleba u ceebeeyaan uma yatrukuhaa tucaani wa tucaani wuu iskaga tegayaa ayadoo dhibaataysan markaasaa waxaa dhici karta bay tiri gabadha buugay qortay oo layidhi almaratu maada bacda suquud bay kaga sheekaynaysaa waxay tiri gabdho badan oo fiican maxay sameeyaan bay tiri marka halkaa markay meesha marayso way isdilaan bay tiri marka ilaa nin baa mustaqbalkeeda ku ciyaaray ceebeeyey balaayo geliyey uga baxay haddana way isdilaysaa bay marka nin baa xalay taleefon iisoo diray xalaydan wiil dhalinyaro waaye wuxuu yidhi waa ku aqaanaa su-aalaan ku weydiinaya shiikho oo maxay tahay su-aasha gabar baan saaxiibba la ahay haye gabar wanaagsanoo edab laho waatan haddaan sheegay edab laho akhyaara waa gartay muddaan wada soconay gabadhii aniga akhyaaraan u haystaa waxay igu sheekaysay inay tahay gabar muddo markaan wada soconnay waxay tiri gabar meehii garoobaan nahay waa qiyaamadii koowaad haddana muddo markaan wada soconnay waxaan ku arkay waxyaabo sharciga khilaafsan sida masawiro aan fiifiicnayn iyadoo wadata iyo waxaas
gabadhii waxaan ku iri walaalay muddaan soo wada soconay wixii hadda ka bilowdo nabad isii ammaan isii gabar xunaad noqotay waa kaa tagay gabadhii wuxuu yidhi markaan saas dhahay way oysiin ilaa haddana way iga daba oynaysaa buy aniga dembi maan ku jiraa gabadhaas inaan iskaga tago haddaan ka taga dembi maa iga soo gaaraya iiga jawaab sheekhow su-aashaas waxaan la yaabay marka hore inaan idinkana idiin sheego oo aada yaab u ah gabdhaheennii oo waalidiintii u joogay gabadhaadii gabar la qabo waa la yaqaanaa oo nin qabo meel degan waa la kasaa gabar allaan qabin oo hooyadeedii aabbaheed la joogto edabla waa la yaqaanaa gabadha noocaana maxaa lagu fasiri lahaa hadda nin bay la socotaa cid kuma ogo iga tagu yiri waa ka daba oynaysaa cid kuma ogo gabadhaas marka aniga waxaan ugu jawaabay gabadha iyo adiga miyaa isqabteen baan markaasuu yidhi maya awalba dembiyaa ku wada joogteen aan ariye ee dembiga ayadana ha ka tagta aadna ka tag waana runte waxaan waxa idinka dhexeeyaba awal dembiyay ahayd maxaa isu sheegi jirteen muddaan wada soconi maxaa ku wada socoteen maxaa la isu sheegaa marka la wada socdo waa jeclaan lahaa gabdhaha meesha fadhiya gabar ka mid inay iiga jawaabto wiilka la wada socdo maxaa la isu sheega anigu waa garan waaye ma lays hor fadhiisanaa waa ku jeclahay anna waa ku jeclahay waa ku rabaa anna waa ku rabaa waa kugu riyoodaa anna waa kugu riyoodaa makaa maarmaaba haye habeen dambana asinimaadno waa ku jeclahay waa ku jeclahay 2 sano maa saas la wadaya iyo 3 sano 4 sano waxa la isu sheegaan garan waaye waxa la isu sheega waxaa weeye waa igu qanacday soo ma aha oo aabbahay ii warso xoolo ma haysto soo shaqayso markaa soo shaqaysa ii soo dha soo saas ma hadde laakiin ii imo waa wax kuu sheege maxaa ii sheegaysa waxaa igu akhriyaysa waa maxay waxa la isku akhriyo la garanayo ani waa garan waay marka wiilkii waxaan ku idhi gabadhaas markii hore aad khiyaamaynaysaa la socotay waxaa kula socotaaba khalad ahaa ayaduna waxay kugula socotaa khalad ahayd ma isqabtaana ammaan isa siiya ama ha oyda ama yayna oynine mar dambe ha u sheekaynin adiga hana u tegin hana u sheekayn ayaduna yay ku imaayay kuu sheekayn haddaad guursanaysana ciddeeda ka raadso laakiin markii horeba waxaa khalad ahayd inaad u sheekayso oo la ballanto oo la fariisato oo wada socotaan sharcigee baneeyey marka waa sheekadan hadda ay ka sheekaynayso waxay leedahay raggu midi laba aflay wataan bay leedahay gabadha way la sheekaysanayaan hadday khayaani karaan waa khayaamayaan bay tiri hadday khayaamo kari waayaan baa laga yaabaa hadduu nin fiican yahay inuu guursado laakiin marka hore khayaamay ku dayayaan inay sidaa tahayna waxaad ku garanaysaa dee ragga aan fiicnayni gabar kasta waa jecel yihiin gabar kastoo kasoo horbaxda wuxuu le waa ku jeclahay tan adna waa ku jeclahay adna waa ku jeclahay adigana ileen gabdhihii baa iska masaakiinoo waa ku jeclahay haddii la yihahdo waa bis ha run bay moodaysaa ha waa ku jeclahayba haddii la yihahdo waxay leedahay waa adduunka waaba ninka iigu jecla marka sax ma aha waa shabaq ama dabin dumarka lagu sasabo weeye ereygaas waxba aanu ka jirin على كل حال قبل وركيدنا أن هلكا وقبحنا المرأة ماذا بعد سقوط كتاب لي يداهدو أي كغشي كيسي إذا مركا كهر ليس لا تتبع خطوات الشيطان مركا هذا حنو ملينا إنا إلا فهمتين خطوات الشيطان آيات القرآن كان فسر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لما وحو يغشي كي وذاده وهذا عن نولين حسن الأورنجري باقي سنة حدين لإيجي شيكي حسن بدوي بالأورنجري وهروي قصة مركو إيجي شيكينا تقريبا 20 سنة مسي ما قرأ عندك سوريكتي حسن بدوي قبلها سيد الله خيامة وقصة عليوي وحير النمبا قود لصاحبي وقتي محمد سياد بر كبدي بو wuxuu isku dayay inuu marsiyo inuu ka zinaysto way ka diiday waxay ku tiri marka maxaad xaaraan ku falaysaa xalaal baa ilaahay baneeyay wuxuu arkay xalaasha inay si fahamsaneen markaasuu yiri oo xalaashu ilaahay baneeyay inaa isnikaaxsano markaasuu yiri oo inaa isnikaaxsano ma ogoshahay haa ay waa ogahay laakiin aniga ma raba inay waalidkaaga ogaadaan waxba yay ogaanin bay tiri haddii la rabo fiiri gabadhaas caqligeeda siduu u maqan yahay nikaax aan waalid ogeyn nikaax ma wuu gartay marka inay maahsan tahay wuxuu sameeyay biir wuu soo kaxay wali way roonayd waxay tiri xagee igeynaysaa sheekh isu kaana nikaaxi
taasi waxay tiri dawladda meel aan ahayn nikaaxeeda ma yeelay waxoogaa caqli yaraa ku jira waxay u geysay sheekh qaadi dawladda ka ahaa maxamed siyaad bare bay u geysay sheekhu isagaa u geeyey sheekhiiba markaa qaadi dawladda away waagi maxamed siyaad bare marka kiibaa ku nikaaxiyey show khiyaana meeshaan ku jirta iyada aysan ogeyn markuu nikaaxsaday buu yidhi aabbahana ma u sheegi kartid hooyadaana ma u sheegi kartid qarsoodiyay noo tahay waayahay bay tiri gabadhii adiga uur baa ku soo baxay markay uuraysatay bay u sheegtay tiri warniyaho wax la qarin kara meeshaan ma yaalo waxbaa jira markii waxbaa jira ay tiri ayuu yidhi dhegaysa marka runtaan hadda kuu sheegaa aniga kuma arkin kumana aqaano mana isheegan kartid haddaad isku daydana naftaan kaa jarayaa waa qiso dhacday waaye ninkii iiga sheekeeya xasan aan yidhaha wuxuu yidhi aniga wuxuu yidhi qisada waxaa iiga sheekeeyey buu yidhi qaadigii laftirkiisi weliba qaadigu markuu iiga sheekeynayan wuxuu yidhi ilaahay buu u toobad keenaya dembiyada waaweyn een galay bay kamid tahay buu lahaa ilan gabar islaameed oo nin la dhuumanayo u nikaaxinaya nikaaxaas waa been waxba kama jiro wuxuu yidhi qaadigii lacag baa la siiyey gabadhii maadaama ay qaadiga hubtay isla markii wuxuu yidhi aabbaheedii hooyadeeda u sheegtay inuu nin nikaaxsaday qaadiga dawladduna ku nikaaxiyey ee muxuu ahaa uuna ku inkiray geesiyaday noqotay waalidkeedii waxay yidhahaan ma hubta ahaa qaadigii ay raadsadeen iyo ninkiibay soo qabteen waa qaadigii noo geeyay dhehen qaadigiyaa la keenay ninkii marka wuu og yahay qaadigu wuxuu dhihi doona gabadhii iyo ninkii isaysta qaadigii loo keenay waalidkii waxay dhaheen gabadheenna uu ninkaan aad ku nikaaxisay siday sheegtay uur baana ku soo baxay qaadigan ayaa marka qisada ka sheekayn doona qaadigii muxuu sameeyey isagaa ka sheekeynaya ninka iga sheekey uga sheekey waxaan iri buu yidhi gabadhii wuxuu yidhi waxaan wacdiyey buu yidhi ciddii gabadha haddana waxaan wacdiyey buu yidhi ninkii haddana waxaan wacdiyey buu yidhi gabadhii aakhiraan xasuusiyey ilaahay ka cabsada markaan wixii dhan u sheegay ayaan waxaan idhi wariyaada horta waxaan idhi gabadhii intaan soo qabsaday aan waxuu yidhi aakhiraa kaa dambayso wax walba waa dhihi kartaa laakiin dembi ha ku darsanin uur xaaraana waa soo bixi karaa wax kasta waa soo bixi karaa laakiin dad inaad nabsato maya markaasaa gabadhii waxay tiri adaa igu nikaaxi markaasaan ku eri buu yidhi bes weeye marka gabadhaani inay dembiilo tahay waxaaba u daliil ah anigaba been iga sheegaysa ha markaasaa nacuudu billaahi min ashaydaani rajiim meeshii wuxuu yidhi waa ka ceeriyey gabadhii ciddeedii wuxuu yidhi waalidkii gabadhii iyagoo la yaabanay meesha ka baxeen oo dhahay been baad sheegaysaa gabadhoodii iyo iga wateenba qaadigii saas sameeyey baa ninkaan xasana waa danba uga sheekeeyey isagoo ooyaayo oo ilaahay inuu toobad keena rabo le dembiyaan soo galay dembiyadaan soo galay waagii aan ka mid ahayd buu yidhi marka hadda waxaan ula jeedaa waxaa weeyaan khuduwaadkii shaydaankii baan ka hadlaynay mogta khuduwaad shaydaan ha la iska ilaaliyo tallaabooyinka shaydaanka wuxuu ku leeyahy shaydaanku guriga ma ka baxdid miya ahaa guriga le maa ku jiraysaa guriga iridiis maxay kaa dhibe fariisano waa gabadhii moogta guriga iridiisay fariisanaysaa gabadhii markaasay haddana iyadoo xishoonaysa maxaa hoos la fiirine dadka jidka maraya fiirino haddana dadkii fiirinaysaa markaasu haddana gabdhahaan jidka maraya saaxiibada salaamno marka dambe wuxuu isbarta gabdhaha wiilal ma ah gabdhaha barano gabdhihii haddana wuxuu leeyahy ha kuu imaadaanno guriga ii imaada dheh gabdhihi ha guriga u imaanaya wixii bannaankay usoo gelinaya marka dambe haddana ayagaba waa kuu yimaadaan aadna u tagno xaafadahooda maa soo boqoti waxaad arkaysaa gabadhii hooyadeed iyo abeed haysato hooyo gabdhaha ficigaba waa ii yimaadaan aniga maxaan u bixi waay halkaasay ka socotaa maxay ku dhammaanaysaa waxaan hadda aan sheegayn gabadhii waa la waayey iyo waa lala baxsaday iyo xaggay ka baxday iyo waxaan meesha loo joogin been baa loo sheegay marka shaydaanka khuduwaadkiisa in laga hadlo meeqa aayad baa inoo hadhay waxaa noo haray 2 aayadood labadaasaan boobsiiyo kadibna aan joojino waxaa meeshaan ku qoran falamaa wadacathaa qaalat rabbi inii wadactuhaa unthaa wallahu aclamu bimaa wadacat walaysa dakaru kalunha aayaddaas ay haweentaas ay tiri imra'atu cimraan markay maryamo dhashay falamaa wadacathaa markay maryamo dhashay
قالت وحي تري ربي إني وضعتها أنثى إله قبر باندلي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وحلو رجع ذا علماء دهين سيدا ويلكو مساجد وشقين كر أور وري كر قبر عيب بيكوت هاي عيب بيكوت عيب بيكوت هاي marka waa run ayad bay ku tahay marka ayadaas waxa laga qaadanaya waxa kale ku xigta ayad kale oranaysa ya'lamu kha'inata al-ayuni wama tukhfi as-sudur ilaahay wuxuu ogyahay ishu waxay khiyaanayso iyo qalbigu wuxuu qarinayo ibn abbas markuu ayada fasiray wuxuu lahaa waxa loo jeedaa buu yiri nin baa guri soo galaya waa ibn abbas baa dhahay guri islaameed buu soo galaya guriga wuxuu yiri gabdhaha mesela jooga wuxuu yiri hadii guriga lala fadhiyo dadku u yimid la fadhiyaan guriga ninkii lahaabo mesela la fadhiyaa gabdhihii oo dhalay baa meesha soo maray wuxuu yiri gabdhihii buu fiirinayaa haduu ninku ka sii jeesto haduu ku soo jeestana waa ka soo jeesanaya hadii laga yaraa kaco gabdhihii buu fiirinayaa haduu muxuu ahaa wadaad oo aan saaxiib ahayno suufi iska aha ayaa guriga iigu imaan jiray marmar oo waxbaan siin jiray oo saaxiib aan la ahaa waa soo dumi jiray markuu guriga soo garaaco gabdhaha kala xarooda ani asaga meel fariisan markuu baxayo jidka baneeya waa baxna meega rumaysanaysan markuu muddo saas iigu imaan jiray maalintii dambe Sheekh Abdulqaadir he adiga wuxuu yiri gabdhaha hal mar maxaa loo arkay yani gabdhaha iyo xaaskaaga iyo waxa naaga guriga hal mar xataa mana tusaysid kaadi waxa raadi baxad ka rabtaa gabdhaha aragtida imaada weydiisanid oo gabar isiinay ma aadan dhihin gabar tusnay ma dhihin laakiin maxaa ka khusay markaasuu ila kaftamay wuxuu yiri aayadii soo qaatay hadda ahayd muxuu ahay yajtanibuna kabaa'ir al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam markuu yiri marmarko in la fiiriyo waa iska dambiye laakiin marmarko waa la iska ogolaadaa buu yiri marka ila eego marka waa wax la yaab marka guriyaha markaad gashay islaameed raggu ay galaan waxa indhaha inay laabtaan inay gabdhaha ay milcsadaan ma aha ya'lamu kha'inata al-ayun ibn Abbas wuxuu ku fasiray waa ninka guriyaha markuu soo galo gabdhaha jooga haddaan la arkaynin isha la raaca markii la arkayana waxaan fiirin iska dhigan ayada ugu dambayso aan akhrinayna waxa weeye zuyina lin-nas hubbu shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آيات شرح هذا ودير يهي وحان اسكودين هذه لا يرى هذا بري إن أن هلكا كسيب بلونه آيات داس شرح هذا أين بري أين قلنه هل آيات وحكال ليس رقا وحالو قرحي شهوينك أو أي كم ديهن دمرك إيا ويلش إيا مالك إيا ذهبك إيا فضة إيا فردها إيا جيلة إيا بيرها iyo wixii lamid ah adduunyada wixii raaxadeedo dhan marka waxa loogu hormariyay haweenka hubbu shahawaati min an-nisa marka dumarka waxa la yiraahdaa waa waxa ugu horeeya oo marka lagu fidnoobay rag ay ku fidnoobaan marka rag nabadoodu waa maxay in dumar laga ilaaliyo ilaa wixii sharci dhexmarmay gabadha uu guursanayo waa gooni laga duusu guursanaynin inuu fiiriyo uma fiicna inuu la sheekaysto uma fiicna inuu la kaftamo uma fiicna لأنه وح إلهي أقرحيوي سيدا درادت بالي هذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام آد بيدمر كودا يرقوا دور صنايين وأين يسود حقيل الجرين سآد إيه آده بيدمر كودا دور صنايين وولي بقى أنا يسود حقيل الجرين ويحناق الجرين ويدبسن جرين هذا يدمر كودا كل حجران أركان آد بيود يبسن جرين هاي آد بيود يبسن جرين أبو بكر بقى وحالي هذا جوري سومالي وحقوق سوقلي حاسكي سو نمان قرابة ذي أكفر ليها وقرابة ذي وين الحجاب أنت كاسا وحالي أنتوا آذوا لبسري والنبي قال شيء يا رسول الله جوري أن تجينا نمان اسكت أحفر ليها وتجينا كاسا النبي قال نمان كحتى وقرنا إنه قرابة لا هاي لكن النبي قال محيري أنتوا استعجبوا يرجعوا وحنفريا إنه رجع جوري هذا إن اسكت تجين رجع إذا كذا لا أنت حتى قرابة الله هذا يعني هاد إيه جر دمرك يرجع هب شرعي يسوق من كره هدي يقول إنه مسؤول كيه دمرك هاس جوجا قرابة حتى ذاته نكا مسؤول كأوين وأجيه مركز عضو إيمان يسي مركز تتجيس إلا قرابة الله بيوكل بحدا قرابة محرمة
taa iyada shaki kuma jiro waa u imaan karaan gabadha adeerkeed iyo abtigeed iyo waa u geli karaan markay rabaan laakiin ragga guursan karo oo geeya qaraabo kasta u ahaadaan ma loo ogola gabadhan isaga soo galgalaan way ka xijaabanaysaa ninkeeda idankiisa ama muxuu ahay wixii maxramkeeda idankiisa ayay ugu iman karaan marka nabigu ma dhihin abubakar niyo masayro waa tahay sida hadda leeyahay annagaa saas leeyahay waa moogta ha nabigu ma abubakar oo nimankan qaraabadaadaad ka masayraysaa maxaa nabigu wuxuu og yahay guri oo rag joogaan oo raggii lahaa joogaan in rag iska galgalaan inayna sax ahayn waana noo socotaa marka insha allahu berri waxaan ka bilaabi doonaa aayaddan oon aada usii sharaxno iyo muxuu ahay axaadiista ku soo aroortay bal ragga iyo haweenka isdhexgalkooda aayadihian hadda dhammaynay axaadiista ayaan berri gelaynaa waxaan rajaynaa intiina inaydaan berri baaqan intii kale gaadhsiin kartaan aa gaadhsiisaan darsigaana waxaan filaa inuu dheeraan doono oo 2 usbuuc markay ugu yaraato 4 maalmood uu qaadan doono maxaa yeelay mar raba inaan buusiyo waxaan rabaa nolol raaxa leh oo fiican oo saxa inaan sheegno oo habkan ku noolaan karna habkan hadda ku noolnahay waa dhibaato wey wiilashii gabdhihii waa la isku sii daayey maalin walba dacwaa socota oo maxaa dhacay war ninkii guriga aan ku aaminayo gabdhaha muxuu ahay aan u malaynaya inuu walaalkooda yahay baa ku kala firayay inta ku dhahaysa lama xisaabi karo war gabadhii heblaaye iyadoo aan moodayna gabar fiicanoo aan meesha u diri jirnay iskoolka waaba lala yahay wiil xuno iskoolka meeqaa wax socda meeshaan marka waxaasoo dhan waxay noo keeneen nolosheena inay baabi'iyaan marka waa inaan ka hadalnaa sideen ku noolaan karnaa gabadhana xishoodkeedii edabteeda ku haysan kartaa ragguna dhowrsoonaantooda ku haysan karaan koow ugu dambaynna aan sheegi doonaa hala kala qoqobnaadana ma aha sideen uga shaqayn karnaa sida sharciga aniga gabadhayda maaha inaa idhaahdo guriga ha ka bixin nin ha arkin nin ha la arkin maya waa saas waa dhahayaa laakiin waa inaan ka fikiraa siday nin saxa ku heli karta haddaan dhaho iyadii nin ha la hadlin ha arkin ha u bixin anna kaala hadli maayo ma soconay shareecadu ma qabto wadday leedahay waxay u baahan tahay in loo guuriyo qur-aankaana sheegay wiilashii waa lamid ha gabdhaha islaameed dhaaf ha la hadlin halaba indhaha ka laabo weligaana ka laabo ma soconayso waa ina iyadan la yidhaha wiilashii waa lagu guurinaya innaga marka guurka hadda waa laga xanaaqa oday baad leedahay wiilkaaga ma u guurisid waad leedahay korintiisii aba dhib ugu haysa ma guurkiisaan wallahi inaana u guurinayn hadhow hadduu maqlo gabadh islaameed uu faraxumeyn wuxuu leeyahay inkaar qabaha la igu yeer waa garaacaya waa dilaya maxaa la igu yeeraa adi markaad 2 xaas iyo 3 saac sii aadaysay xaas asaga ma u guuris sala khatar wey waa maqrib waa ka xumaa inaan ku dheereeyo meeshaasaan ku joojinaynaa hada wabillahi tawfiiq وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.